karo forget ma fahanti hadda dadka badan siyaabo badan imaka naag saaka waxaan daawanaya gabadh ku soo qoratay janankeeda ay ku qorantay fahmo show waxay samaysay wax allaale wixii kelmad afkayga ka soo baxay ayay soo ururisay markay soo ururisay micnaha indhahay xidhantay niqaab bay xidhan tahay anigu inaad akhwaan tahay iyo inaad waxa tahay waxba kama sheegi karo laakiin janankaaga magaciisa ayaan sheegay waxaa lagu dhahaa fahma show way haddaad qofka bini'aadanka ka hadlaysa inaadeer waxa weeye waa inaad si daacada oo niyad oo labada qof dhexdhexaadin haddaad qofka bini'aadanka wuxuu sheegayso si dhexdhexaada ayaad uga sheegaysaa halkan soo fadhiisatay naagaha nimankooda ka sheekeeya sharaabiyuu baan ku idhi waad edab daran tahay ma fahanti sababta oo waxa weeye qofka markaad wuxuu sheegayso walaalo waa inaad si dhexdhexaada labada qof markaad dhexdhexaadinayso inaad u hadasho weeyaan oo aad labada qof si dhexdhexaada uga hadasho micnaha aniga showga ee kelmadii afkayga ka soo baxdaba waad soo qaaday waad hadalkayga soo dhigdhigtay soo isu keenkeentay akhwaanadna waad sheegaysaa indhahaad xidhanta haddaad diinta taqaano oo aad diinta taqaano yaa ku yidhi qof fiidiyowgii soo dhib banaan halkaas soo dhig yaa ku yidhi wax ka sheeg yaa kuu fasaxay inaad fiidiyowgaaga soo gashato oo aniga ceebahayga banaanka usoo dhigto iga saar baan kugu idhi iga saar naayaa naagta la dhaho fahma showey iga saar qof allaale qofkii aniga arrimahayga sida khaldan uga hadlay waa inuu iga saaro naagta ninkeeda adeer naag iga eda badan oo iga asluub badan oo iga afgaabani may jirin ma fahanti waxa la dheriga karka baan ku yidhi dabbaa ka keena naagiga aamusnan waa la yaqaana aniga naag iga eda badan oo iga akhlaaq badan oo iga magaranaysaa adduunyada baan kugu yidhi ka xishood badan qof intuu xishoodo ayaan anigu xishoodaa qof intuu xishoodo ayaan xishoodaa qof intuu dadka ixtiraamo ayaan ixtiraamaa kowdhe walaal aqoonii ma lihid waxna igama sheegtan haddaad taqaano waxaan kuu sheegay fiidiyowgayga aad gashatay ee aad soo dhigayso iga saar baan ku yidhi iga dhilid garee baan ku yidhi naagta la dhaho fahma show I don't like you iga saar baan ku yidhi kow iga saar ma doonay fiidiyowgaaga wallaahi bilaahi talahi youtube-kaaga shaqaan ka qabanaya haddaad iga saari weydo wallaahi ribood intaa leeg baan qoraya haddaad iga saari weydo wejigayga aniga wixii isticmaalay ee sida khaldan u isticmaalay youtube-kan u sheegaya wallaahi aniga naaga batamihi ma fahanti naaga batamihi kumana qarinaayo intaan youtube-ka tago warqad intaa leeg u qortaan le my face-kaygaa la isticmaalay ma fahanti haddeerba hadduu youtube-kaagu kuu nabad qaba qofkii si khaldan aniga ii isticmaalayo fiidiyowga iga saar walaalo fiidiyowga waa inaad iga saarto qofkii aniga facekayga isticmaalay ee sida khaldan wax iga sheegay ee sida khaldan aniga fiidiyowga ka soo dhigay walaal iga saar anigu promise ma haysataa yaa kuu fasaxay facebookayga ayaan ka duubtay live-kayga my personal ayaan facebookayga ayaan ka duubtay bormation ma haysataa aan anigu kuu fasaxay aan kuri fiidiyowga gasho ma haysataa maya weeye jawaabto qofkii aniga fiidiyowyadii aan duubayay ee problemka familiga sida khaldan u isticmaalay youtube-da soo geliyo dhan wallaahi bilaahi tala cirka tihiin baan ku yidhi cirka haddaydan haddeerto iska saar haddeerba fiidiyowga aad sida khaldan u isticmaashay iska saar baan ku yidhi anigu wallaahi ma walaaco hadalkana kamama gabado intaa haddii lay goynaayo ma gabado anigu ma fahanti runtaan kuu sheegaya wallaahi bilaahi tala intan beber intaa laga qoran youtube-ka galaya gogolle ayaan u tegaya waana naqaana meesha loo maro facebookna anaaba ka shaqayn jira wallaahi oo bilaahi oo tallaahi anaa ka shaqayn jiray ma fahanti xabkaa iga fudud haddeerba hadduu kuu mid qabaa iga saar baan ku yidhi I don't like you naagta horta ma rabo kow naagta ma doonayo fiidiyowyadayda oo dhan wixii sida khaldan u isticmaalay oo dhan waan ka saarayaa ribood baana kugu socda haddaad haddeerba ka saari weydo heedhe wallaahi bilaahi oo tallaahi waxaan ku yidhi jaamacadda waaye aragnimadaan wataa anigu jaamacadda waaye aragnimada ayaan sitaa naag dhuqdhuq waxeeda loo cuni kara miyihi baan ku yidhi naag dhuqdhuq lagu safayn karana miyihi ma fahanti waxaan kugu yidhi haddeeraaf youtube-kaaga ku mid qaba wallaahi oo bilaahi oo tallaahi youtube-kaan aniga iga saarin shaqaan ka qabanayaa shaqo my face ayaad isticmaashay may wejigayga ayaad isticmaashay ma fahanti yaa kuu fasaxay naagtaas horta fahmo la dhaho iga saar
ilaahaaga haddaad taqaano ummadda nebi maxamed aad ku jirto oo aad shahaadato fideoga ayga aad soo ururisay you have to gone baan ku yidhi inaad ka saarto kow fahma show number 1 ka saar baan ku yidhi ka saar iga saar baan ku yidhi qofkii aniga sida khaldan iiga hadla wallaahi shaqaan ka qabanaya inaanan deynin baa wallaahi iga saar walaalo aniga waxa weeyaan halkaasaad soo dhigto haa waad ismacaaninaysaa abaayo miyaad iga caqli badan tahay miyaad iga fiican tahay you know ma fahanti igama caqli badnid igamana fiicnid igamana magaranaysaa aniga waxaan ku yidhi iska ilow forget ma fahanti qof kasta aniga wax iga sheegana wallaahi halli baan usoo qabanayaa mid ayaan usoo qabanayaa lacagtiga ma bixisid ma fahanti maxay haytay information uma haystaan ku fasaxay fideoga kuma oran gasho youtube-kaaga hadeer ba aniga qofkii si khaldan iga hadla waxaan kugu anigu magac baan leeyahay name baan leeyahay neemkayga qofkii aan isticmaalayn asluub iyo sharaf aan hadalka si wanaagsan aan u odhanaynin aniga waxayga ma qaadan karo qofkii si wanaagsan ma garanaysaa uga soo sheekaynaya ama aan ma garanaysaa aniga aan brain damage ugu ridaysaan anaba xanuun qaadsiinaysaan wixii youtube-da gashaday oo delete wixii wanaagsan aan ka hadlayo haysta eeg wixii ee aan ka hadlaayo ma garanaysaa aan anigana dhibaato ii keenaynin anigu qof xanaaqsan baan ahaa qof ma garanaysaa cabanaysa baan ahaa ninkayga anigu ma caayin anigu marnaba ma caayin sidan haa maxay haytay caruurtaaday waxyeeli doontaa kanay wax olaalo caruurtaaday guursan doona caruurteeda haddaan doono Soomaaliba ugumaba guurinayo اختيار بيلين ماشي دوران بيمر دور وعيش دوران بيجورسن كران حربيين كودي أنا كمان عروض هذا صاحب مرايكم بدي دوران جورسنين فار نايس ما حد شيء قسان بعد تيم بقى بسكير بس عمالي قرموي هو بارشر كاهي أنت حنحن بشيء جاي ولي بس تبرين أنت حنحن بشيء جاي أنا قدرت كفيديو إذا سيدا وناكسن وقصوا هاللي السيدا وناكسن أنا جا صومالي ده شيء بالمان قصده صومالي ده شيء محليه thank you very much والله وبالله وطلعه thank you very much صومالي ده شيء وعدد شرف له وعدد وناكسن إما يعاين إما حبيجي ما يشيجن إما أفلقادينين فيديو كي قصقروح بدن بيوقصوا هاللين سي وناكسن بيوقع هاللين دح هذا إن حتى وحيابه بدنا خلدنا oo meelo khaldan kaga jiro way ka saareen wixii fiicnaa ayay soo qaateen ma fahanti horta waan u mahad celinayaa qolada la dhaho Soomaalida shidan wallahi billahi tallahi Soomaalida shidan I love you Soomaalida shidan waan jecelahay awal taageerayaal baan ahaa awal baan taageeri jiray waanan idin jecelay walaalo thank you very much because fiidiyoyadeeda aniga si khaldan umaydaan isticmaalin si fiican oo maaragtay in reer magaalnimo ku jirto ayaad u soo dhigtaan waana ku mahadsantiin walaalo waxa ii xigtay inta kale la dhaho Maryan Ali thank you very much quruxda qoyska si wanaagsan thank you very much walaalo adigana si wanaagsan oo caqliyeysan oo asluub iyo sharaf ku jirto ayaad uga soo hadashay thank you walaalo waad ku mahadsantahay wixii si khaldan uga hadlay waan cambaaraynaya dhamaan anigu ma tirin karo malaayiin youtuber weeyaan anigu ma kala garan karo too much weeyaan laakiin qofkii aan wax khaldan ku arko waan soo qabanay magaciisna oo sheega qofkii wax wanaagsan ii sameeyay ama wax si wanaagsan ila fiidiyowgii uu duumayo meeshii waa la geliyay si wanaagsan uga hadlay thank you baan leeyahay aniga Soomaalida shidan waxaan arkay fiidiyo yar aan ciyaarayay hees yar qurux badan bay ku soo qabteen micnaha wixii yar khaldan way ka saareen معناه ويره هجاتين ما فهمتي معناه قفك بلادك هو خلطمي كرا is very good thank you ولا لكن ضدك خلطني يعني قصده حين استعماله مسكح لي برين دامج كنا هذا الكيك سو وريه سو جوجينا إن بمرك سو قاضية سيدا ناكتا إندا حيرا نوكله ناكتا إندا سو حيرا توكله يعني دوني هذا الكيك أنا يوتيوب كصادق كسا بهاي كسا وصادق دي كسا كلمتي أفكار كسو بحد بس صفورة رسالة سيداني ناتري هذا ما يهين محاد هداد أنا قاعد دوني سنة عيبتي دا أسطورت محاد وصادق دي كسا ما تسكرني عفتي مركز عرفتي واي وقال سو هاد لسا واي يا كودر صدي أنا قم بدوني وحسيحوني يقصو هاد لي وحسيحون أنا قوحي يقصو الشاقة قف شرف لانا هاي قف أنا وكرامة اللي بانا هاي
anigu ma doonayo wax caaya anigu wax waxay filgaadeeyo toona ma doonayo because anigu caayida dadka ma caayo anigu dacayida waan ka xanaaqaa anigu adhoon layka waxay caaya wallaah wixii ay caaya aniga wax iga sheega ma jecel anigu ma fahanti aniga adhoon layka waxay caaya aniga wax iga sheegay ma rabo ma fahanti anigu wixii si wanaagsan oo asluubi ku jirto maxay haytay si wanaagsan oo asluubi ku jirto nin baa wuxuu yiri mid kalena wuxuu yiri gabadhan waxa lagu furay buu yiri hees Soomaaliya ay u qaaday been baad sheegtay walaalo inanka yara yiri Soomaaliya ayaa gabadhan lagu furay fanaanadan waxa lagu furay hees Soomaaliya u qaaday kadibna before Somaliland bay markii hore u soo heestay kadibna reer hees bay Soomaaliya u qaaday waa la furay waa been ayaad ku sheegtay walaalo anigu feerastii u horeysay heesaa Soomaaliya waxaan u qaaday markuu farmaajo qabsaday ayaan qaaday farmaajo waan taageeray dadkii farmaajo aad u taageeray baan ahaa isbedel doonka ahaa markaasaan qaaday 2017 waan qaaday waxaan qaaday markii hore hees la dhaho ayaan qaaday dadkeenu haduu isdilay dagaal hore uu dhexmaray dib baa loo heshiinayaa macnaha waxaan ka hadlayay waqooyi iyo koonfur baan lahaa way heshiin doonaan macnaha sasan ka hadlayay aniga had iyo jeer suugaanteeda waxaan ku cabiraa rajo fog oo soo socota marka waxaan leeyahay markii uu farmaajo qabsaday ayaan waan faraxsanaa sida runtii macnaha waxaan aaminsanaa inaan maaragtay isbedel badan insha Allah waanu iman doonaa qofka bilaadanka waa loo samraa farmaajo waxyaabo badan buu qabtay walaalayaal qofka bilaadanka hadaan la shaqeynin oo aan la taageerin oo aan la isgarab taagin keligii qofku waxa ma qaban karo madaxweyne keligii waxba ma qaban karo ma fahanti laakiin waxyaabo badan oo wanaagsan uu qabtay waxyaabo badan wadan burbursan buu yimi wadan 30 sano dagaal ka soconayeen buu yimi wuu qabtay wax badan laakiin Soomaalida dhibaatayna haysata qof bayna afar cisho jeclaanayna kadibna way iskaga cararayna waynu caayna hadhuuto marka aad baan u taageeray bariga asaga aad baan u taageeray wallahi billahi tulay habeenkii waan soo jeeday inaanan habeenkii seexan habeenkii farmaajo la dooranayay wallahi iliya baal isugu keenin labada indhood inaan isku siba waagu igu barey markii saaw loogu dhawaaqay saddexda madaxweyne saddexda u saa gacmaha isku qabsadeen intan TV-ga la hoos fadhiyo intan sawir ka qaaday baan hal heesa ku soo sameeyay marka labaadna waxaan qaaday heestii la oran jiray calanka buluuga ah 2017 baan qaaday 2019 oo bishii afraad ayaa soo saaray heesta Somaliland heesta Somaliland 2019 ayaan Hargeysa ku soo duubay heesta Soomaaliya ayaa horeysay markii hore macnaha aniga waxa weeye Soomaali waan u dhaxeeyaa maadaama aan u dhaxeeyo debenti because Somaliland wadankayga waan ka soo jeedaa Soomaalina waa baan ahay bad waan u dhashay marka waxaan is hadad Soomaali oo heestay wala Somaliland oo heesto waajibay waay inaan u heeso ma fahanti marka heesta calanka waxaan kaga hadlayaa 60kii markii midnimada Soomaaliya la midoobay calanka aynu helay ayaan kaga hadlayay ta kale farmaajo aan heestiisa qaadina farxad baaba iga keentay iga keentay anigu aan taageeray farmaajo hadaad neceb tahay walaalo anigu shakhsiyada adigu iska nabcow anaa jecel macnaha waxaan ku jecelay madaxweyne Soomaaliyeed weey farmaajo iyo qayre iyo kulligoodba waan taageeraa waan jecelahay waxa la wixii wanaagsan waxaan anigu inta madaxweynaha taageeraan idin sheegaya wallahi beenidi ma sheegayo madaxweynayaal badan baan taageeraa waxaan taageeraa farmaajo waxaan taageeraa ninka la dhaho Deney Muuse Biixi waan taageeraa oo madaxweynahayga waxaan kaloo taageeraa Axmed Madoobe halka madaxaygu saaran yahay waqti waan taageeraa nin kasto fariida waan taageeraa anu madaxweyne kasto fariida waan taageeraa because madaxweyne inaga ka dhigano dooranay oo meesha saarnay qofka bilaadanka marka dadku madaxweynaha afar cisho ma la buunbuunanaya inta hadhowto waa la nacaya no waa baad walaalo Soomaalidu in iska dayso siyaasadda inaga yara xun siyaasadda iskuul baa loo galaa waa la bartaa ma garanaysaa mid kale wax iska dayso maraan ina had iyo jeer inaad noqotaan dad wax lagu shubto jecla qof jeclaysanaya maaha
وين هذا يكتقف وحو قبطي وحو ودنك هو قبطي وحو ددك هو قبطي وحو سو كرديي ما garanaysa waxyaabo badan qofku dhaliil uu yeelanaya laakiin waa in aanad de qofka aanad ila ii xad maaragtay aanad ku sitirax tagin marka waxa weeyaan anigu waan taageeraa xalaale wixii wadanka wuxuu qabto waan taageeraa Soomaalida de waxaan raadinaynaa inuu dadkeenu inay wanaagsanaadaan ayaan baan anigu jecel anigu Mareykan baan joogaa alxamdulillah laakiin walaa qalbigayga halkan qolfigayga joogan kan qalbigayga wadankayga ku maqan حاجة وحويلنا هاي وان تاجرة because ودا كستو صومالية ميل كستو صومالية وحو ناكسن مركي كتيران واتكو فرحسا أدينا ويكو تامانيسا لكن مركا ميل صومالية ميل كستو كمي دا مركا ديب كتيرو والله وينو كل جينو فيلين وينو ودا دريمينا because وحينو نهاي وحكينا يا داد اسكو تشورا داد اسكو ديغا داد إهيلا داد قرابة عبينا وحبابا مكالينين ون ليشن religion kale ma haysataa af kale ma ku hadashaa nationality kale ma leedahay wadankeena badan ma u dhaxaysa horta Soomaali bayna wadankeena horta badan ma u dhaxaysa bal u fiirso ma bad bayna dhex martay wadankeena meena wadan kaliya country kaliya aynaan hayn qaridadeenu waa saa wata qaridadaas oo leenahay badina ma dhex marto laakiin way nagu wareegsanti xagaad iga socotaa xagaad iga aadi Soomaali baaba tahay hayga tagin walaal ila joog marka fixed please dadka siyaasiyiinta fariin dheer baan halkan uga dirayaa walaalayaal siyaasadda Soomaaliya waa cakiran tahay 30 sano gooray hagaagi doontana garan maayo anigu maalintii siyaasadda Soomaaliya xumaatay ina yar baan ahaa 1988 baan ka soo bilaabay anigu 1988 to up to now anigu 91kii ma oranayo because Soomaaliya waxa la baabi oo subalanbalkii hoogu soo bilaamay gobolada waqooyi markii dagaalku uu nagu bilaamay anaga ta up to now walaalayaal siyaasadda Soomaaliya way cakranta waa in maxaa looga fadhiisan waayay maxaa loo heshiin waayay maxaynu dad u noqon weyni maxaynu dad mar qura tashada ila umada Ilaahay way tashataay aynu noqon weyno isku raaca maxaynu noqon weyni midda kale anigu Soomaali anigoon kala goynayn oo aan kala goynayn waxaan anigu xalka u rabaa xalka u oran lahaa hadii aniga maskaxdayda yar layla tashan lahaa hadii layla tashan lahaa kulli Soomaali isma rabtay oo iskuma soo ma garanaysaa iskuma waatan 19 madaxweyne yeelatay gobol kasta imka maanadho ما لو عن كبقيين نقطتين قبيل لان إنه صباح عن كبقيين مالدو قبيل لان ومدحوين حتى قبيل لذوني مدحوين مدحوين ياش قبيل لذوني حتى مدحوين يالي يوم عملوا يا شام كبقي كودي الله صوالي ما دارلي كرماي قبيل لان بصباحي كل ما ندو انتان قبيل لان نصبحين بليز بليز وحنا اذا كنت سنه ولا الشير دقدقه انت يلاشان صومالي انت شير دقدقه يلاتان بل هدا اسراعيسان اسراع هدا كلا غويسان كلا غو بل horta midho dhalkeena siyaasadiinu bal mar qura ha dhaafto heede siyaasadaadu bal mar qura ha dhaafto reer hebel bal reer hebel hankaagu ha dhaaf reer hebel buu inamadii xidigaha geeska heesay ee fanaaniinta reer geesa hankaagu ninku han weyn hawo wuxuu yiri waxay dhahdeen heestaas caadi ma moogtay waxay dhahdeen qofkii u han weyn hogaanka dadkoow hankaagu ha dhaaf reer hebel kowdee bal mar qura horta Soomaaliya iyo Somaliland inta fariisataan anigu Soomaaliya oo dhan baan sheegaya Soomaaliya inta heshiisaan oo meel wada fariisataan oo shaydaanka iska naartaan bal wax go'aana ku heshiiya oo waliba dalka gudihiisa ku heshiiya oo xataa haddaan Soomaaliya iyo Somaliland Somaliland iyo Soomaaliya oo kaliya la soo dhex fariisinay oo labada qof ay ishaya yaan la dhex fariisinay yaan la iska horkeenin oo aan soo fariisinay Djibouti u yeera maxay haytay magaranaysa shantii Soomaaliya oo dhan ha loo yeero macnaha shirka Soomaaliya ka soo qayb galaan shir shantii Soomaaliya Djibouti
gaarisa iyo maxay hayto jigjiga muqdisho iyo hargeysa ha laysu keeno micnaha dadkaas wax ka qayb galaan waxaynu ku heshiinaynaa markaa waxaan rabaa in lagu heshiiyo wax fiican oo midho dhala midda kale waxaan doonayaa anigu hal mid baan dadka ka khaldan baan u sheegayaa koonfurey labaha isku darsan koonfurey labaha isku darsan inaad tiraahdo Soomaaliha midowdo bal hadeeg koonfurey anigu de hadda isku kamid baatiin koonfurey labaha isku darsan inaad tidhaahdaan Somaliland ma go'i karto madaxweynuhuna aanu ahaanaya madaxweyne ku-xigeenkuna aanu ahaanaya ra'iisul wasaaruhuna aanu ahaanaya yaa ku yeelaya oo taadigu aqli ma lihid madaxtooyaduna aanay ahaanaysaa muqdisho ahaanaysaa sidee baa dad ku haananaysaa markaa sidee baa lagugu imanaya markaa waaye ila keligaaba meesha haystee wax ka bedel waa in horta annaga mar horta haddaad doonaysaan Somaliland inay raacdo Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya oo dhan ha noqdo Somaliland waynu ka soo jeedaa kow Somaliland madaxweynaha Soomaaliya oo dhan qabsanaya siyaasaddu waa idinka yaray akiran tahay inay idin sheegaya wallahi inaan wala wax idinku biiriyaan rabaa inaan wax idinku biiriyo waxa weeyaan siyaasadda haddaad doonaysaan Soomaali koonfurey micnaha koonfurey haddaad doonaysaan inaad dadku ay midoobaan waa in reer waqooyi ay noqdaan madaxweynaha waa in madaxweynuhu noqdo madaxweyne ka soo jeeda waqooyi madaxweynaha Soomaaliya oo dhan xukumaaya laakiin haddaad tiraahdo madaxweynuhu waa aniga madaxweyne ku-xigeenkuna waa aniga ra'iisul wasaaruhuna waa aniga waxaanan rabaa midnimo dadku weli waxay u arkeen dad maaragtay lagu qabsanayo xoog qalad bay u arkayaan marka ma soconayso walaal waa inaad horta madaxweynaha halkaa iska dhigtaa mar qura iska dhiibtaa mar qura madaxweyne ma iga dhigta mar qura waqooyi madaxweyne ma ka dhigta balay minister saan sheekada ku maqlay cigaal baa ahaan jiray laakiin oo niman badan oo dee ma garanaysaa Cumar Cabdi Qaalid cigaal Allah naxariisto dee rag badan oo madaxa waa laakiin mar qura madaxweyne koonfur markay waqooyi markay guurtay koonfur aaday ee calankiiba aanu qaadnay xagga geynay maxaana siiseen madaxweyne ma siiseen madaxweyne ku-xigeen ma siiseen xageena dhigteen de markii dambe dib aan u soo xanaaqno waxay baan dib u soo cararnay ma garatay ilaa qof awal wax kugu darsaday baan ahay kowdi marka dad doonaysan inay heshiisaan waa inaa wax isu haneysaan waa inay iscafidaan waa inaa maaragtay isjeclaataan waa inaa wax wada qabsataan waa inaa tashataan waan go'ayaa ma go'aysid waan go'ayaa ma go'aysid waan go'ayaa ma go'aysid waan go'ayaa ma go'aysid ha iga tagin kulama joogayo sheekadaas ku jirtaan marka ma noqon ma shaqaynays waxaas ma shaqaynays ma garateen waa in Soomaaliya xal degdeg laga keeno xal waara ilaa iyo goormaan lahaa shirkii carta Soomaaliya la heshiisiinaya sanad taagna waxa kama soo baxaan no goorma inta san leeka markii Soomaaliya wax soo galeen ee subax saan u joognay Allah adduunka ilaahay alla maxaan xabad soo taagnaa labadayga badbaadiyay rabbigayo maxaan xabad soo taagnaa 10 meelood baan ka qaxay anigu kawdhe marka waxaan idin sheegayaa micnaha intaasaan leeka markii dagaalku bilaabay maantana wadi ka arkaya ayeeyaa bani rusi jiraaba kawdhe ayeeyadii waxba igama harin in ayeeyo noqdo ayeeyadii waxba igama harin dee maalin dhow waan iska noqonaya insha Allah Allah igu simo kawdhe laakiin walaal xal waara loo baahan yahay xal waara mustaqbal baa loo baahan yahay anigu maansooyin badan ayaan ka tiriyay waxaan idhi markuu qarankeeni dumay dadkeenuna kala qaxeen dunida ay kala qabteen maxaa dayacnaga qabsaday markuu qarankeeni dumay dadkeeni kala qaxeen dunida ay kala qabteen
maxaa dayacnaga qabsaday kuwa debadaha ku nool daraagada lagu guraa dalkii qaar baa ku hadhay dabkaba loo saarin dheri wayeelkii baa dayacan gidaar dumay baan hurdan daryeelkii guud ma jiro wixii dawladii lahayd daryeelkii guud ma jiro wayeelkii baa dayacan gidaar dumay bay hurdan wahay danyartaa u daran daryeelkii guud ma jiro wahay danyartaa u daran wayeelkii baa dayacan gidaar dumay bay hurdan caruurii baa ka daran dugsiga aan qaar tegayn dabkaba loo saarin dheri markuu qarankeeni dumay maxaa dayacnaga qabsaday markuu qarankeeni dumay maxaa dayacnaga qabsaday allaha daayinaan barye dabayl caafimaadna mari dalkaygana nabad ka yeel allaha daayinaan barye dabayl caafimaadna mari dalkaygana nabad ka yeel wayeelkii baa dayacan gidaar dumay bay hurdan wahay danyarta ugu daran qaxoontiyada markaan dadka silcaya markaan daawado waxaan idhaahdaa haddaad dawlad ay lahaan lahaydeen dadkiinaa dayacan lama arkeen marka wallaahi bilaahi tula aniga way itaabataa micnaha dadka danyartaa baan ka hadlayaa I know dad waxhaystaa way jiraan dad ilaahay wax siiye way jiraan laakiin danyarta dadka danyartaa baa ugu daran gidaar dumay waayeelkaa ka daran waayeelka gidaar dumay buu saa hoos fadhiya allah halkaasaan ku noolahay haddaynu dawlad lahaanahayn heedhe saamaynaa noqoneen heestu way soo socotaa weli wahay isku duubniyo quruxi waa dawladnimo midnimo waa deeqilaa derajo lagu meel maraa midnimo waa deeqilaa derajo lagu meel maraa quruxi waa dawladnimo dadkaagoo nabad heliyo dalkaaga adoo dhistiyo dantaadaad garatoyo quruxi waa dawladnimo uliyo diir baynu nahay dadaan kala diinahayn duntana soomaalika
dadaan kala diinahayn duntana soomaalika inaan isku duubaniyo inaan isku duubaniyo dadkeenoo wadaa jiriyo quruxi waa dowladnimo midnimo waa deeqilah darajo lagu meel maraa maxaa lagu diidayaa midnimo maxaa ka fiican midnimo anigu reer Somaliland baan ahay Muuse Bixi oo ima xidhi kartid madaxweynahayga qaranka ima xidhi kartid haddaan Hargeysa imaado waa Faadma Qadan qofka kula hadlaya ima xidhi kartid absolutely midnimadu waxaan ku yiri midnimo waa deeqilah darajo lagu meel maraa kowdhe quruxi waa dowladnimo inaynu israacno oo Soomaali mid noqoto wax ka qurux badan ma jiraan laakiin madaxweynaha ayaa reer waqooyi madaxweynaha reer waqooyi ka dhigay anigu kowdhe I love you madaxweynahayga qaaliga ay Muuse Bixi Cabdi han noolaado ha jiro laakiin aabo oo adeer madaxweynahayga qaaliga ahow midnimadu waxa weeyaan wax jira farmaana waqooyi waxaad ka dhigtaa madaxweynahaasi reer Somaliland baa madaxweynaha iskala hadda laga bilaabo anigu rayigayga maskaxdayda yardee kulay dadka kama aqli badni kama fiicni laakiin wixii calooshayda ku jiray aan drink maybe haday saa ku dhici lahayd oo madaxweynaha waqooyi laga dhigna Soomaaliya Israaciil lahayd kowdhe ba adigu farta maanta oo dhan bal gacantaas oo kaliya maanta wax ku qabato saa wala wareegaaliso la meerayso wiligaaba laakiin hadda labada gacmood isu geyso waxbaad qaban kartaa soo midnimaduna saasay ka dhigan tahay walaalayaal midnimadu wax fiican weeyaan wax kasta midnimadu ku fiican yihiin wax kasta midnimada ay ku fiican yihiin marka hadal wuxuu ku dhayahay midnimo waa deeqilah darajo lagu meel maraa midnimo waa deeqilah darajo lagu meel maraa dadkeeno israacayo quruxi waa dowladnimo quruxi waa dowladnimo erayadeeda ha iga xadina hooy halkan ay ka soo baxday halkan maasha Allah abwaanada baan ku wuri abwaanadu Soomaali bay ka dhalato noon lama cisaynayo Soomaali baan ka dhashayo waa bilaa ma garan karo wallahi I don't know kala waa iska samraya maalin one day baan u malaynayaa inaan helayo ma garanaysaa in la caleemo saarayo abwaanadu laakiin waan iska samraya halkaygaasaan iska fadhiyaa Soomaalidayda anigu waan iska jecel halkaas Soomaali uun ha wada jirtaan lee wax kalan idhaahdo ma garanayo anigu intaas ma dhaafi karo quruxi waa dowladnimo like sheerka kala dira video ogana idin fasaxay fasax Soomaalida shidan number 1 Soomaalida shidan I love you Soomaalida shidan waan jecelahay wallahi meel kasta adduunka ka joogto waan idin salaamay Soomaalida shidan Soomaali oo dhan I love you waa waqooyi waa koonfur waa Gaarisa waa Jigjiga waa Djibouti shantaba aniga u baahan Soomaalida aan ka beermay budiyo waa aragtidayda indhaha waa baalashooda oo shantaba aniga u baahan shantuba iyada isu baahan waka shantaba aniga u baahan Soomaalida aan ka beermay budiyo waa aragtidayda indhaha waa baalashooda shantaba aniga u baahan ma ka maarantaa qof Soomaaliya maya way jawaabto waa Djibouti waa Gaarisa horta shanta meel fahanteen waa Djibouti Gaarisa Hargeysa Muqdisho Soomaalida aan ka beermay budiyo waa aragtidayda indhaha waa baalashooda shantaba aniga u baahan oo shantu